بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أتأمرون ما أمريسان الناس ضدك ما أمريسان بالبر وناقي سميه ضدك ما أمريسان وتنصون ما هالماميسين أنفسكم نففيالكين والحالنا نفتيني ما هالماميسين أنتم إذنكو تطلون أخرينيسان الكتاب كتابك التوراة أخرينيسين أفلا تعقلون موينا وحبا قرنين. إلهي سبحانه وتعالى سورة وحو نوغشي كينا نمكي ربن إسرائيل أها waxyaabihii lagu soo eedeeyay waxa kamid ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu yiri xaq iyo baadilka isku darinina inuu hadana xaq oo qarin haya. waxyaabihii la soo amray waxa kamid ah salaada in ay tukadaan oo Ilaahay yiri salaada tukada. halkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadana wuxuu nagu sheegayaa nimankan dadka inay amrayaan wanaag ayaga nafsadoodana ay haleynayaan. wanaagaas dadka ay amrayaan laba qaybood lagu sheega mufassiriinta. markii la leeyahay atamuruna an-naasa bil birri dadka ma samaha amraysin birriga waxa la yiraahdaa waa ism uu iska leeyahay wanaagu shay kasto wanaagsan birri ya la yiraahdaa. markii la leeyahay marka ma dadka birri amraysin laba macna lagu fasiraayo xilliga hore oo nabi Maxamed intaan la soo dirin umbay nabiga uga sheekeyn jireen dadka waxayna u sheegi jireen nabiga in la raaco inay xaq tahay iyo quraanka nabiga la soo dejinayo. haddana markii nabigu yimid nimankaana waxa shalay aayada ku soo qaadanay inuu Ilaahay yiri wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan. asbaabta ay diinta la qaadan waayeen waxay ahayd xoogaa adduunyaha ay haysteen. marka way qariyaan waxay ka baqan inay dad shacab horayda noqdaan haddii ay xilka iska wareejiyaan nabiga qiraan markaas ay dibka inkireen. marka dadka wanaaga amriisina xilliga hore nabiga uga sheekeyn jireen nafsadiinina haddaad khiyaanaysiin. ama waxa la leeyahay dadka qaybo kamid ah waxay oran jireen nabi Maxamed inuu xaqiiqa quraanku xaqiiqa waa wax sugan laakiin anaga sideeyada u diiday. si kastoo la yiraahdo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay dadka wanaaga tusinaysiin nafsadiisana ma ka halmaamaysiin nafsadiina wanaag. qofkaas wuxuu ka dhigan yahay la yiraahdaa faynuusta kale ka dhigan yahay ama leefada faynuusta. leefada faynuusta ama marada faynuusta la yiraahdaa iyadu way gubanaysaa laakiinse dadkaas ku intifaacay waxyaabo badan oo ku intifaacay iftiinkeeda. qof kasto meeshan waxa soo galahaya cilmigii yaqaana bulshadiina wanaag uu sheegay asaguna aan ku dhaqmayn qofkaas wiciidkan uu soo galahaya. marka waa qof nafsadiisa aan nacfi u lahayn laakiin dadka kala nacfi u leh. Ilaahay marka wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala kitaabkii aad aqrinaysan oo tawraadaha ma weyn dad aqli la ahayn qof aqli la ilaa naftiisa intuu halmaamo nafkan uma gargaareen xagee see wax idinka yihiin leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala. أتأمرون ما أمريسين الناس ضدك ما أمريسين بالبر وناقي سميه ما أمريسين وتنصون ما هالماميسين أنفسكم نفيالكين والحال أنتم إنكم تطلون أدخرينيسين الكتاب كتابك التوراة أفلا تعقلون موين وحب قرنين إلى إله سبحانه وتعالى ضد علم على هين ماتين محايد كل عاي وعقل لهين. هل كان آيات كان إلهي وحنه سبحانه وتعالى نمان كان ما داب إن النبي رميان إلى قرآنك waxyaabaha u diiday ay madaxtinimo kamid tahay inay madaxtinimada iska iloobaan sifaadka dadka wanaagsan ay ku sifoobaan. madaxtinimadu marka qofka asagoo lacagiisa dana qaadan jiray hadduu ka tago waxa ku imaanaya faqdu nicmo way wax uu haysto waayay qofku marka baahiyo dareemay iftiqaar. baahidaas marka inay iska iloobaan dad ay noqdaan wanaagsan madaxtinimadaas iska iloobaan ba aayadan lagu tusinay iyo asbaabtay mari lahaayeen. Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wasta'inu kalmaysa bisabr sabr kalmaysta. وما دام مدح أهيدان هذا الله ربنا إن ضد كمين نقطين نبي أدبجشين وكده وفيشين صبر مركز صبر كالميست والصلاة صلاة كالميست وصلاة الله إماده تكذا صلاة كالميست قلبي يدجسا صلاة وإنها استعانة ضمير كإن له عليه أو كالميست صلاة دي صبر كلا كالميستي أما الصبر كله عليه وإنها استعانة أم مذكورات لما له عليه وإنها استعانة داسي أما صلاة لكبيرة صلاة مد علوس وايو إلا على الخاشعين دتك خشوع ما دتك لو يكون علوسته إن قفك أما الصبر إلي ماذا صلاة أما أو صلاة إلي ماذا وأرهن علوس إلا دتك خاشعين تمام دتك لو يكون علوسته marka maadaama sabar loo dira sabarkii dad ku culus iyo jira dadkaas ha noqonina dadku u fududiyahan oo khaashiciinta u fududiyahan
sifo kaluu ilaahay ku tilmaamo aladiina khaashicuun taasoo yadunnuuna yaqiininahaya annahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbigood inay la kulmahayaan. dadkaa khaashiciinta oo khushuucsan oo mufakiriintaah haddana waxay yaqiininayaan inay ilaahay la kulmahayaan subxaanahu wa tacaala oo ilaahay uu xisaabinayo subxaanahu wa tacaala. wa annahumna yaqiininaya iyagu ilayhi ilallahi intii kaa raajicuuna kuwa u laabanaya inay yihiin. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala sabar iyo salaad kaalmaysta wayna ku culusaa salaadu ilaa ma ahan dadka khaashiciinta ma ahan. qofka hadduu khaashiciya salaadda way u fududaanaysaa. khaashiciinta sifaadkooda waxaa ka mid a waa dad yaqiininahaya oo og inay ilaahay la kulmahayaan subxaanahu wa tacaala. maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuhu, xadiiska imaam muslim uu soo saarahayo uu nebigu leeyahy qof idinka mid ihi ma jiro ilaa rabbigiisa la hadlahay. inay marka rabbigood la kulmahayaanay ogaanahayaan. waxay kaloo dadkaas ay yaqiininahayaan haddana inay ilaahay loo celinayo subxaanahu wa tacaala noloshaan in laga gudbi doono xayaato kale loo gudbi doono markaa kabacdina dadkaas ilaahay loo soo xashrin doono. sidaasay yaqiininayaan. qofku marka intaa laga helo oo uu qiyaamaha qalbiga kusoo xaadirsado uu ogaado inuu yahay qof dhimanaya dhimasho soo xaadirsado markaas muxuuma noqonaya khaashicu noqonaya. halkaas sifada khaashicnimada ka dhalanaysa. cibaadaadka iyo salaada iyo sabarkuna muxuu noqonayaa wax fudud u noqonaya sababtoo ta adduunyadaysa waxba ahayn ba ogaanahaya oo daartaan ay sayn daarul iqaamaha ay tahay daartii lagu safrayay. haddana nebigu sala allahu calayhi wasalam hadde waaba say oranaya salaadan raaxo ku tilmaamo arixna yaa bilaal nebigu waa soo oranayay noo aadaan marka salaadii noo raaxe. isagaa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam ishayda qawsigeeda salaadii aa laga dhigay. waa qofku markuu uu gaaro khaashicnimadaas iyo sifaas ka rumeeyo cibaadaadko dhan maxay u noqonayaan cibaadaadko dhan raaxay u noqonayan wax dhibaataa ku noqon maayaan. yaa bani israa'iila reer bani israa'iilo udkuruu xusuusta nicmatii aniga nicmooyinkayga xusuusta allatii nicamtaasoo ancamtu aan ku nicmeeyey calaykum idinka dushiinana aynu kugu nicmeeyey. ilaahay wuxuu leeyahy reer bani israa'iila waxaa xasuusataan nicamta anigu idin kugu nicmeeyey wa aniina xasuusta anigu fadaltukum idinka inaan idinka fadilo idinka dheeraysiiyey cala alcaalamiina caalamiinta oo dhan. ilaahay wuxuu leeyahy nicamtayda faraha badan oo idinkugu nicmeeyey xasuusta. waa la tirin doonaa aayaadka soo socdaa noo tirin doona. haddana wuxuu leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacala dadka inaan idinka fadilay waxaa laga wadaa marka cala alcaalamiin. caalam ilaa waxaa la yidhaha maasi wallah. caalamiinta marka waxaa laga wadaa cala alcaalamiina idinka fadilay calaa caalamiin zamaanihim waayo ayaga zamankoodii macnaha wixii joogay waayo laakiinse nabiyullaahi maxamed iyo ummaddiisa ka fadli badan. ilaahay marka wuxuu leeyahy arrintaasna xusuusta dadki idinku horreeyey oo zamankiina ah idinka ugu fadli badnaa arrintaa xusuusta. wattaquu ka cabsada yowman maalin ka cabsada yowmkaasoo laa tajzii aysan tarayn nafsu naf aysan tarayn can nafsin naf kale xaggeed shay-an waxba aysan ka tarayn. waxaa kaloo qalbiga gashatiin maalin naf aysan waxba ka tarayn. walaa yuqbalu aan la aqbalayn minhaa nafta xaggeeda aan laga aqbalayn shafaacatun erge aan laga aqbalayn qofkan la iisii daayey. oo walaa yuukhadu aan la qaadayn minhaa nafta xaggeedii cadlun madax furashana aan laga qaadayn. maalin aan shafaacana jirin oo qofka loo ergoonayna iidaa aan la arag. shafaaco caamaha laga wada dad gaara ilahay uu ka aqbali doona qur-aanka in lagu cadaan doonto. haddana madax furasha aysa jirinoo akoonka intaa ku shubahay jannada igeel aysa jirin warkaas. walaa hum dadkiina yunsaruuna kuwa loo gargaarahay aysan ahayn dadkiina aan markaas loo gargaarin. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala nicmadeedina xasuusta maalinkaasna xasuusta. markaas maxaa ku qasbanaanaysin haddaad dad qalbigu u nool yahay tihiin inaa ilaahay caabudiin. nicamtayda xasuusta maalina ka cabsada. maalinkaas ilahay sifaad buu ku tilmaamay wattaquu yowman. maalinkaas sifaad uu iska leeyahy waa maalin waxba laysku tari karin shafaaco iyo erge aan layska yeelin lacag madax furasho ay sawir. adduunka waxaa laga yaaba haddii wax ku qabsadeenoo baabuurkaaga ada wata meeshan lagu qabsado qof kale yaqaana iga damiino inaad tiraa uu kuu shafaaco ama aad tiraa intaasoo lacaga idin siinay dembiyaa galaaha layga cafiyo. laakiinse maalinkaas ma shaqaynayaan waxyaabahaas oo dhan ilaa man ata allaaha biqalbi saliim. waid waqti xasuusta najaynaakum aan idin badbaadinay min aali fircawna fircawn ciidankiisa xaggiisa aan idinka badbaadinay yasuumuunakum xaal ay idinku mayracahayaan fircawn iyo ciidankiisii su-a alcadaabi cadaabka midkiisa xumaa ay idinku mirahayaan. yudabbixuuna xaal ay gowracahayaan abanaa'akum wiilashiina ay qalahayaan wayastaxyuuna ay ka leexanayaan oo ka tegahayaan nisaa'akum naagihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy nicamtayda xasuusta. maxaa nicamtaas ka mid a? xilligay aan idinka korinay fircawn iyo aalkiisa. aalkaas waxaa laga wadaa min aali fircawn. marka ilaahay leeyahay aalkaa waxaa laga wadaa juyuushu fircawna laga wadaa waa ciidankii uu watay fircawn. haddana ilaahay ma oran fircawn aan idinka badbaadinay muxuu yidhi
ciidankii fircawn wataa idinka badbaadin uu ilaahay subxaanahu watacaala ciidanka marka waxaa laleeyahay ayaga amaru asagu siin jira laakiinse ayagaa ficilka mubaashar ahaan ayaga u samayn jiray waxayna idinku mayracayeen mayraca waxaa leeyahay xooluhu marka inta daaq wanaagsan ay heleen ay ku laalaabtaan marka cadaabkiinaba iyo idinka ku mayracanahayeenoo sida xooluhu naqaas ugu xiisoonayeen bay cadaabkiina iyaguna ugu soo xiisi jireen cadaabkii aayaddu fasidho ilaahay wuxuu leeyahay yudabixuuna waxay gowracayeen abnaa'akum wiilasha horta waa qalahayeen nin faaliyaha intu fircoon wuxuu ku yidhi wiil reer banu israa'iil ku dilaa ka gowrac wiilasha wayastaxyuuna nisaa'akum gabdhihiinana way ka leexanahayeen idan marka wiilasha haddii la gowracay dumar iyo odayaala meesha ku saaray marka waa dad aan wax kacdoona samayn karin oo layska haysan karo oo lagu shaqeeyo wa fii daalikum najahaas inaan u celino oo najeenaakum damiirka laga fahmay oo injaha ilaahay idin badbaadiyey in la yidhaahdo balaa-unaa ku sugan ikhtibaaraa ku suganoo ikhtibaarkaasoo min rabbikum rabbigan xaggiis ka aday balahaasoo cadiimun ee weyn ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala badbaadintaas aynu badbaadinay laydinma badbaadin inaa ummadda ku kibidhaano ilaahay awaamirtiisa ka hor timaadaan laakiinse arrinkaas waxaa ku sugan uu leeyahy ilaahay subxaanahu watacaala tajribaa ku sugan balaa-un baa ku sugan tajriba beladaa laga wadaayo bal inaad nicamta ilaahay ka shukrisaan iyo ina hore u socotiino macaasi iska wadiina la fiirinayo oo markaas daalikum kiinaas loo celiyo waxaa kaloo bannaan damiirkaas oo daalikum ku jira cadaabkiinaas waa bele in la yidhaha sababta taa qofka markii nicam la siiyo waa imtixaan inuu ka shukriya laga rabaa haddii qofka musiibo lagu ciqaabana waa imtixaan inuu ku sabro la rabaa labada mid kale rasu celiyo najaah haddaan u celisiyo badbaadinta injaah la badbaadiyeyna nicmaa lagu itixaamay haddaad cadaabka u celisidna cadaabkaas laydinku itixaamay waid waqti xasuusta nicmo kaluu ilaahay sheegaya subxaanahu watacaala waid waqti xasuusta faraqnaa aan jeexnay bikum idinka albaxra bada aynin dhambalno idin jeexnay fa anjaynaakum markaas aynin badbaadinay wa aqraqnaa aan maashaynay aala fircawna fircawn ciidankiisa aan maashaynay asagiina waa la maasheeyey faqashiyahum alyami maa qashiyahum wal xaal antum idinkana tanduruuna aada fiirinaysiin haddana wuxuu leeyahy ilaahay subxaanahu watacaala nicmo kale xasuusta nicmadaasoo ah fircawn markuu nabiyullaahi muuse uu qowmkiisa uu kala dheelmaday reer banu israa'iil wuu raacdiyey wixii dadka shaqaalaha in la soo celiyaa la rabaa dadkii meeshaan ilaa gaari gacmo inta lagu xiraa qoryaha lagu guran jiray fircawn uu ku dhaweeyaa badiyaa loo kala jeexay nabiyullaahi muuse baddi asagoo jooga usha ku dhufaalaya badiyuu mar badda dhexdeeda asagoo maray markuu arkay fircawn inuu la galo u damcay fircawn ciidankiisa markuu badda asna la galo ka daba dhow yahay oo kii ugu dambeeyey baddi uu soo galo badiyaa lagu qarqiyey intii fircawn iyo ciidankiisa xajmiga ka haysteen ayagoo weliba fiirsanahaya ilaahay wuxuu leeyahay marka idinkoo fiirsanahayaan halaag sababtoo taa waxaa la yidhaha cadowga adoo fiirsanaya haddii wax ku dhacaan farxad gooniya ku ta laakiinse haddii lagu soo sheego laya cadowga waa la halaagay waa farxad laakiinse haddii adoo ujeeda la halaaga waa laba farxadood ilahay marka wuxuu leeyahay wa antum tanduruun idinkoo fiirinaya cadowgiina halaag wa id waqti xasuusta marka faraqnaa aan jeexna bikum idinka albaxra badii fa anjaynaakum aan idin korina wa aqraqnaa aan helanay aala fircawna fircawn iyo aalkii iyo ciidankiisiya laga wadaa walxal antum idinkuna tanduruuna aada fiirinayseen waa nicmo kale ilaahay u galay reer banu israa'iil waid waqti xasuustuu leeyahy ilaahay wacadnaa aan yabahno muusaa nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam 40 aan u yabahna 40 leylatan min leyla uma takhadtum aad yeelateen alcijla dibigii weylkaa aad ka yeelateen min bacdihi min bacdi muusa nabiyullaahi muusa markuu tegey ka bacdi ilaahan aad ka yeelateen waxa ka yeeshaana maqano ilaahay dibi ka dhigteen walxaal antum idinkuna daalimuuna atiin kuwa dulmi samaynaya ilaahay haddana wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala nabiyullaahi markii la rabay muusa in kitaabkii lagu soo dejiyo waxaa la yihi 40 beri ka hore laysoo diyaargarow taskiyatu nufuus waxa la raba inuu soo sameeyo nafta inuu soo maadaama ilaahay khitaabkiisa uu socdo inuu nafta soo saafi garayo nabiyullaahi muusa waxaa la yihahdaa wuu soom si uu asagoo hadda nebi ilaahay haddana taskiya la rabo qof markuu wanaag qaadanayo inuu soo sameeyo marka 40kaas uu nabiyullaahi uu maqnaa nabiyullaahi muusa uu ka maqnaa unbay dibi intay qaateen dibi yar oo weyla caabudi ilaahay marka wuxuu leeyahay xilliga anagoo waxyigii idinkugu maqnaa ambiyadii idin ka soo dhex saarayna aad dibiga caabudin ayana xasuusta oo dulmiga aad samaysteen see loo galay uma cafownaa waa iska cafin cankum idinka xaggiina waa iska keen cafin min bacdi daalika itikaadkaas ka bacdi markii itikaad aad la timaadee dibi aad ka dhigateen ilaah ood caabudeen haddana waa iska keen cafin uu leeyahy ilaahay subxaanahu watacaala lacalakum tashkuruuna likay tashkuruuna si aad ilaahay ugu shukrisaan masna waa la iska keen daayey si aad ilaahay ugu shukrisaan nicamtaas oo dhana ilaahay u gala marka maxaa laga dalbaya cibaadadiya laga rabaa inay la yimaadaan wa id waqti xasuusta aataynaa aan siinay muusa nabiyullaahi muusa alkitaab aan siinay kitaabkii furqaanaha nabiyullaahi aan siinay macnaha towraad ahaa nabiyullaahi muusa wa id waqti xasuusta aataynaa aan siinay muusa nabiyullaahi muusa alkitaaba aan siinay kitaabkii oo towraad aha waaye
والفرقان أنا أنسيني وصفدي شيء صفة هي العطفي أصل وحا الكتابة كتاب كاسو الفرقان حقيقي بعد الكل ساري سيدا سالك وضع لكن سوى لسكو عطفو الكتابة يا سيمنو والفرقان أنا واسينا أصلا كي وحكا لساري وإسلا كتابك أسوون وكتابك حقيقي بعد الكل ساري لعلكم تهتدون لكي تهتدون سيادو هنونتين للوسي إلى إله سبحانه وتعالى أما لعلكم واحد من أنتين تهتدون إن الهنونتين وحاصلنا ذاكو اعتبار قادتين وحولي إله سبحانه وتعالى حتى أنا حصوصا نعمل كل اللي يدين سميه نبي الله موسى إن اللي يدين سيه كتاب أو حقيقي بعد الكل ساري اسكعد وإذ وقت حصوصته قال موسى نبي الله موسى ويري لقومه قوم كيسين ويري نبي الله موسى يا قومي أنا قوم كيو إنكم إذنكو ظلمتم waxaad dulmiseen anfusakum nafyaalkiina aad dulmiseen oo dulmiya gashay maxaa ku dulmiseen biittikhadikum idinka sameeyay yeelashadiina ilaahay ku dul nafsadiina ku dulmiseen al-ijla weelka aad yeelateen ilaahan aad ka yeelateen xilla xasuusa nabi ilaahay muusa muxuu ku yiri qoomkaygiiyo dadkiina waa ku dulmi waa naftiina waa dulmiseen waxaana ku dulmiseen dibiya ilaahay ka dhigateen fatuubu marka laabto ilaa baarikum allahi idin abuuray u laabto oo baariga ahaa فاقتلوا دل مركا أنفسكم توبة قابك ودعيس إلهي شيئا مركا دلوا ينفسدين لا يتوبت كان أن دلها الملهدين فاقتلوا مركا دل أنفسكم نفيالكين ذلكم أركاس خير من خير بنوي لكم منك عند باريكم ربي إن أكتس من خير لواي فتاب إلهي مركا توبة أقبله فتاب عليكم إلهي دوشين وكتوبة أقبله إلهي سبحانه وتعالى وحوليه النبي الله موسى وحوليه حل وحوليه إلهي النبي الله موسى قوم كسوير قوم كيجو نفس الدين ارتباط ظلمسين ظلم كان واحد قصة ميسين دبيات إلهي كدقتني أن إلهي أهين مركا قوم كيجو إلهي الله سبحانه وتعالى الله دين أبوري الله أبتي الهاس كيفية مركا الله أبتي إلهي موعل رأي لقلان إلى استغفار لي ماذا ما إنها وحصد قيستان قاب كيف الله أبنها إلهي سبحانه وتعالى وحير مركا فاقتلوا أنفسكم نففيالكيننا ديلا سيو ديلا نفيالكود وحواية ضرورة انتا لا دخدغاي إسلاعية مركا ويلكو أديركيسي iyo walaalkiisi kulli uu dilay isku jeeda kuwii marka oo dibiga caabudayna kafaara iyo dambi dhaaf u noqonaysa kuwii aan dibiga caabudina shuhaday noqonayaan ajri ka helayeen cizi saasay marka isku laayeen nafsadiina marka dila sidaas ana khayr inana ilaahay agtiisa oo ilaahay